بعدما أنا هاي أضيق ودحي يودنا إن شاء الله أنا أدحي قلاية أو هوله هذا حلينا إياه هدو إلهي رحمه لكن مدو هذا معارض وبهنا معارض ولو بهيه لكن معارض كلو بهيه وحوي markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas uu dawladda shisheeyay uu la jirin wax kasta ay tahay inuu dawladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah ka wax dhisayo way ma aha kan dawladdiisa duminaya ma aha Allah ma hadle oo caawa halkan isu kaay keenay annagoo u dabaaldegayna cali masaarka madaxweynaha cusub دكتور سعيد محمد دني سعيد عبد الله دني إيوه مدحوين كوحيين كيسا إيوه قدون كيسا بارلمانكا وحان ربعين المهد عليوه مدحوينيه هوري بولان دكتور غاز runtii aan la sheegin hawshuu qabtay oo ay tahay inaan ku ammaano hawshii 5 sano ugu dambeysay uu qabtay oo ah wax la taaban karo iyo sida wanaagsan uu xilkii u gudbiyay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo musharaxiintii kale oo ka qayb gashay electionka sida sharafta leh oo wanaaga ah oo runtii tartanka dhabta ah ay uga qayb galeen kadibna ay u aqbaleen natiijada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada Puntland oo xaqiiqdii sugay ammaanka waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeeynaa runtii guusha waxaan ilaahay ka baryanaa inuu ku fududeeyo hawshan hawl sahlan ma aha waan naqanaa marka ummad la maamulayo oo waliba xaalado iyo duruufo adag lagu jiro wax sahlan ma aha ilaahay waxaan kaaga baryanaa inuu hawsha ku fududeeyo waxaan rabaa caawa halkan aad looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay Puntland 20 sano ee ugu dambeysay waa xaqiiqa waxay gaartay Puntland guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxa isku soo wareejiyay xilka shan madaxweyne oo lix ku yahay Saciidani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxa guushaas keenay lama sheegin waxa la yiri dawlad wanaag iyo dawlad waa dhab laakiin dawladda xagee ka timid dawladda yaa keenay waxa loo baahan yahay inaan taas iyada naftigeeda aan si fiican taabano dawladdan aan arkayno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta oday dhaqameedyada ee Puntland inay yihiin dad midaysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaaleynta dadka reer Puntland aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxa kale oo keenay horumarkan arkaysaan culumada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyi galiya u iftiimiya dawladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dawlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hogaamisa runtii hawl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda kaliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ay waxay ugu soo gaartaa xamar iyo ugu soo gaartaa sida uga hadlayaan in dawladda laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad ugu mahadsan yihiin ajar Allah ka siiyo waxa kale oo runtii gaarsiiyay Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media annagoo og media wax badan in lagu hadleen karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhageystaa media ka jira Puntland inta badan dadku waxay ku wacyi galiyaan wax aad iyo aad u wanaagsan
kuma wacyigeliyaan in dawladda laga hor yimaado in dawladda la burburiyo kuma wacyigeliyaan ugu dambeys shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo Soomaalinimadooda iyo dawlad jaceelkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhaweeyeen wanaag badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorax ah ilaa saaka laga soo bilaabo aad iyo aad yaan ugu mahadcelinayaa siday dawladoodu u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin haddaba su'aasha taalo waxay tahay oo madaxweynaha u taala intaas oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigooda aad iyo aad u sareeyo waxa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu hogaamiyo yaa loo baahan yahay maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana kaliya baahidooda Puntland oo waxay u jeedaan oo u muuqda wax ka weyn Puntland oo ah qarannimo Soomaaliyeed oo ah midnimo Soomaaliyeed oo ah wadajir Soomaaliyeed sidee lagu gaari karaa marka intaas ee lagu gaari karaa waxa lagu gaari karaa dawlad goboleed iyo dawlad federaal oo wada shaqayn leh oo wax qabad leh yaa lagu gaari karaa wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaan ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18 sano ugu dambeysay dawladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay'adihii shaqeyn lahaa ee dawliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku raahdaa week ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dawladda dhexdeeda dhex yaala way oo aan hadda halkan ku fadhino 4 prime minister halkan aan ku fadhino caawa oo 18 sano ugu dambeysana la marayo ilaa 12 sano 12 prime minister la marayo markii maalin walba marka uu isbedel yimaado waxa xaqiiqaha maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxa xaqiiqaha inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dawladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka xoreeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo badeena difaaca iyo ciidan cirba anagoon lahayn waxaas oo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalino wax alla wixii khilaafaad dhexdeena ah haddii ay timaadana aan dhexdeena ku xalisano si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadino damaanad markaasa waxa la heli karaa wax qabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeena marka la cabirayo dawladaha adduunka oo la leeyahay dawlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye institutionsna waxa ugu horeeya kow in laga ilaaliyo hay'adaha dawliga wax la yiraahdo musuqmaasuq in laga ilaaliyo maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutions ama hay'adaha ku jira oo si sahla u burburin kara inta badan waxa laga yaabaa inaan u naqaano musuqmaasuqa lacag la xado kaliya ma aha waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye oo aan u qalmin oo aan aqoonteeda lahayn kartideeda aan lahayn khibraddeeda aan lahayn waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacaduhu shaqeeyo oo dawladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta la xado kaliya ma aha lacagta la xado waa ugu weyn tahay maxaa yeelay waa resource-kii mushaaraadka lagu bixinayay ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayay
waana waxyaabaha runtii annagana weeqay intii dowladnimadeena ay jirtay way sidaas darteed anigu kullayba waxaan leeyahay hadalkayaan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray ana ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyay idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaan ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdama aan ahay odaygii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaasun dowladda shisheeye uusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah kan wax dhisaya weeye ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqayno maxaan ku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna in aan ummaddeenna u shaqayno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu